ciidanka damdamiska oo horkacayo taliye ku-xigeenka ciidanka damdamiska ayaa gaari damdamisa ku wareejiyay maamulka degmada Togwajaale waxaana goob joog ka ahaa maamulka gobolka Gabiley iyo gudiyada kala duwan ee magaaladaas wareejinta gaariga damdamiska ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Togwajaale Xaashi Maxamuud Cabdi iyo taliye ku-xigeenka guud ee ciidanka damdamiska gudoomiyaasha gudiyada kala duwan ee ka dhisan magaalada Togwajaale xarunta ganacsiga Soomaaliland waxaana mas'uuliyiintaasi dhamaantood ay ka hadleen muhiimadda uu damdamisku u leeyahay magaalada Togwajaale oo ah xarun ganacsi isla markaasina ay taala hanti badan hadlayo muddadaasi imika ay uruusnayd degmada Togwajaale ka xashaan wamasta haddii berigii hore daryar meel ka dhaco daqiiqadaasaan ururdi jiroon kulba booyad halkay joogtaa halkay martaa caynka kolba meel baan ku hodisay intaa imika damdamisku jiray isla daqiiqadaasi aan ogaado damdamiskaan ku dhuftaa halkaa tag uu tagaa waxa kaloo aan tirada kuugu jirin booyad baan soo dhinaanay waxaana saacadood biyo ku jira oo haddii damdamisku hawl galo iyadna raacdo oo ku soo kordhinay waxa kaloo ay jirtaa degmadan aynu jaarka nahay daanta Itoobiya laba damdamiso waaweyn oo booyado waaweyn ayaa la keenay kuwaasna iskaashi baan leenahay marka dabka halkan ka dhaco amadka waxaan mahadnaqaynaa taliyaha damdamiska taliye xigeenka inoo keenay inta badan ku fikiraya macnaha muhiimadda ay leedahay magaaladeena aad ugu fikiraya aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waan kaaga mahadnaqaynaa waxa weeyaan imanka gaarigii damdamiska ahaa mid hore ayaa joogay oo ku yaraa oo makaranaysa booyadii waxa soo iibsay dawladda hoose biyaha inta badan gaarigu wuxuu tagi jiray markuu tago meesha isagoo bilaa biyo markuu tago wax loo qabanayay ma jiro laakiin booyadu markay imanka raacdo gawaadhidii waxa weeyaan damdamiskii si fiican bay u wadayaan emergency-gii inkasta oo magaaladii ay waqtiga roobka ay dhooban noqonayso taliye ku-xigeenka ciidanka damdamiska ee mastaafadaasi Wajaale ilaa Hargeysa saaka soo kalahay inaga darteen halkaa inoogu yimiday gaarigeenii magaaladu lahayd ee aad u dayacnaa inta ay soo dayactireen soo hagaajin soo celiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa ciidanka iyo isagaba waxaan salaam inta kadib aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ciidanka damdamisku annaguna ka magaalo ahaan ka ganacsata ahaan aad baan diyaar ugu nahay waan ugu kalsoonahay hawsha ay qabanayaan annaguna wixii aan la qaban karno inaan la qabanno annaguna diyaar baan nahay idinkana aad baan idin soo dhaweynaa jasaakallah dadaal badan baad samaysaan waayo waa shaqadiinii tacab iyo muruq baad ku bixisaan annaguna wixii awood aan idinkala qaban karan ee nagu maarmi weydaan waa idinla qabanaa maamulka degmaduna waa diyaar oo saasoo kale u dadaalaa marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin Mukhtaar Nuux Ibraahim Ariel TV gobolka Gabiley